عليكم وانا ودا سلام meel walba adduunka ay ka joogtiin magacayga waa Nuruddin maanta waxaan hayaa mowduuc ku saabsan lugaha adigoo guriga joogta aad ku subin kartid si fudud qaabka aad ku subinaysid oo kala duwan iyo waxa sidoo kale dumbbell waxa loo yaqaano fudud aad ku subin kartid maxaa yeelay bir badan uma baahnid hadii aad awoodid dumbbell aad guriga soo dhigin kartid fadlan soo gado dhigo sidaad ugu jimicsatid afar qayb oo kala duwan oo lugaha aad ku dhisi kartid ayaan maanta idin soo bandhigayaa qaybta koowaad waxa loo yaqaano front squat oo aad ku subin kartid dumbbell laakiin marka koowaad intaan jimicsi u guda galin qofku waxa muhiim ah inuu stretch ama warm up subiyo sidoo macnaha dhiiggiisa u kululeeyo qas mar walba aad gymka tagtid ama guriga aad ku subinaysid fadlan isku dayna xoogaa jirka kululeysa inta jimicsiga bilaabin hadda waxaan tusayaa qaab yar oo aad warm up ku subinaysid adigoona bira haysanin qaybta lugaha ku kala furaysa dhiiga hadda waxaan tusayaa markaa sidaas dhexdid qaybta kale straight yar oo gadaal hamstringka 1 2 3 4 hadda dhinaca kale oo bedelaysaa 1 2 3 4 so markaad warm up subisid kabacdi aad inaad u howlgashid jimicsiga waxaad soo qabsanaysaa laba xabo dumbbell qaybta koowaad oo front squat ayaan ku subinayaa dumbbellka lugaha wax yar oo saana leedahay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 marka qaybta koowaad aad dhahdid sidaas waa muhiim qofka inuu 45 second 1 minute uu nasto uu biyo cabo maxaa yeelay biyaha waa muhiim waxaan tusayaa qaybta labaad oo loo yaqaano lungeska so lugna horaan u dhigaa lugna gadaal 10 ka dhaho hadana 10 aan ka dhaho qaybtan qaybta kalena 10 aan ka dhahaa maxaa yeelay waa muhiim qofkii la sima xisaab 45 seconds and then 1 minute and sit. waxaan tusayaa hadda qayb saddexaad oo lagu dhiso hamstringka oo dumbbell ku subin kartid one back stretch ka subin 2 3 so qaybtas markaa saas ka dhahdid waa arkayseen 3 jeer aan ka dhahayaa tira ahaan waxaan ka dhahayaa 10 reps wax loo yaqaano qayb walba saad markaa dhamaysid qaybta labaad exercise ka bilaabaysid 3 jeer ka dheh oo min 10 ah oo tirada hadda qaybta ugu dambeyso inoo badanaa dadka markay lugaha dhisaan way ka tagaan wax loo yaqaano calfska badanaa kor ay dhisaan laakiin lugaha hoose ma dhisaan qaab waxaan tusaa fudud aad dumbbell ku dhisi kartid waxaan tusayaa qaab aad ku dhisi kartid lugaha calfska waxa loo yaqaano waxaad subinaysaa aduu garaa laabaysaa xoogaa yar wax hor lean forward wax hor u baxaya iska dhige lugtaa soo qaaday 1 2 3 qaybta markaan 10 ka dhaho haddana qaybta kale 10 aan dhahaa anigoona nasan horaan kasii dhahaya sidoo kale 1 2 3
so 10 waa ka dhahaa marka waa marka koowaad markaas first set waxa loo yaqaano laba set kale oo noocaas oo kala dhaxaysa markaas aad suubisid afartaas qodob oo aad u fudud ay guriga ku suubin kartaa haddii kalena haddii aad awoodin gym aad ka qorantaan oo ku dhigi kartaa qalabkan aan tusay fadlan share dheh haddii video ku anfacay asxaabtaada dhan insha Allah kuwa badan oo aad ka faa'iidi doonto waan soo wada